Hi friends, my name is Blake Desjarlais. I'm the very proud member of parliament right here in Edmonton, Griesba. And with us is Shariif Xaaji, the brand new MLA for the province of Alberta for this district right here called Edmonton Decor. وبليك يو شريف المقعد شريف حاجة اللي هذا وحنا هاي حلوان كسوق على حافظنا إدمنتون ديكور سومالي ترى بدن بعد دقن ساس دراد دينا أفكار هو يكون هلا مهمة وحيلجوا بليك دجرلي بليك وإمبيجا أصلا كسوق على حافظنا وحكومة ترى حافظنا حالي هذا الدولة ده وانين runtii aad iyo aad u dooda uguna hadla xaafadan waxyaabaha dadka saameynta ku leh haday noqon lahayd noloshooda haday noqon lahayd guriyeyntooda haday noqon lahayd immigrationka haday noqon lahayd dhinacyadaas oo dhan so maanta waxaan ugu talagalnay in aan fursad siino dadka Soomaaliyeed ama guud ahaan dadka xaafadda degan ee soo doorta aniga Blake-ba muhiim waxa ah dadka la soo doorto oo dadka matala inay u helaan fursad ay dadku kula hadlaan break waxaan ka qabnay maxaa la yiraahdaa fadhiga golaha baarlamaanka gobolka saas daraadeed waxay ahayd weegan kaga faa'iideysanayno inaan dadka la hadalno aan maqalno waxyaabaha runta dhibka ku haya wax badan baan maqalnaa oo kamid ah caafimaadka wax badan baan maqalnaa dhibaatooyin oo la xiriira dhinaca waxbarashada waxaan maqalnaa dhibaatooyin dhinaca la xiriira nolosha qaaliyoobaysa sida daraadeed fursad waxay noo ahayd maanta inaan halka kula kulano dad badan oo dadka xaafadda degan ah nolol sheer gareeya si ay nolol wadaagaan arrimaha runtii saameynta kula noloshooda. It's not every day that Canadians and Albertans have the opportunity to speak directly to their members of parliament and their members of the Legislative Assembly. That's why Sharif and I, we want to be able to be accessible. We want to change the narrative of how local officials, duly elected officials interact with the community. The community is our electorate, they're our constituents, they're our bosses. And so we believe that we hear directly from the community as to what they want us to do both in parliament and in the legislature. Sharif is a fantastic advocate for the entire community, and that's why he won this seat. And I know from working with Sharif that we're not going to let up when it comes to making sure that the Somalian community and that our entire community is well represented and that their voices are heard. Canada is a place for all of us. So we have to ensure that our legislatures and our parliaments look like us. And so I'm so honored and so proud to be able to serve with Sharif, to serve our wonderful community here in Edmonton Griesba and Edmonton Decor. So I heard a lot about the struggles people are facing when it comes to the cost of living. People are being gouged, whether it's at the grocery store, whether it's getting gas, or whether it's even trying to pay rent. Things are getting expensive in Canada. But why are they getting expensive in Canada? Today I was able to meet with folks and hear their stories about what and how they're falling behind. They're doing everything right. They're going to work. They're showing up sometimes for 2, 3 jobs and still falling behind. The reality is Canadians are working hard. Those who aren't working hard are earning the benefit though. CEOs in our country, the biggest billionaires in our country are getting even richer. And so we know that we need to tackle how expensive things are, and that's going to mean making sure that those who charge us our goods, whether it's at the till and grocery stores, are good corporate citizens, and that they understand the crisis that Canadians are in, and that we bring those prices down. And that's going to happen should we have cooperation from the federal and provincial levels of government. waxaan runtii aad bay muhiim u ahayd waxyaaba dadka aan la kulanay halkan maanta aan kula kulanay dad badan baa noo yimid oo dadka xaafadda degan ah waxyaabaha runtii ay sheegaanna waxaa ka mid ah number 1 noloshii oo qaali ah sida uu Blake u sheegay guryeyntii oo qaali ah oo aan dadkii awoodin caafimaadkii oo problem badan oo ka jiro oo dadkii runtii ay noqoto inay sugaan muddo badan haday rabaan inay dhakhtar arkaan waxbarashadii oo runtii dhibaato ka jirto oo ay ka mid tahay dadkii in ay ardada inay dhigato ugu yaraan 40 ilaa 30 iyo dhowr arday ay ku jiraan kalaasyada qaarkood oo macallimiinta runtii aysan maareyn karin kalaaska iska badaya inay tacliintii quality-ga lahayd ama tayada lahayd ay bixiyaan marka runtii arrimahaas ayaan maqlayn waxaan halkan kula kulmay hooyo Soomaaliyeed runtii oo bixisa kirada lacagta ay samayso ugu yaraan 50% waxay kaga baxdaa kiro runtii macnaheedu waa 4 carruur bay leedahay ma awoodo nolosheeda kale marka in ay maxaliyada ka qabato ama runtii ay awood u yeelato noloshii kale carruurtaas inay kaabi lahayd marka si fiican baan islay wax badan baan ka baranay dadka aan ka dhageysanay aniga Blake marka aan kula laaban doona legislature-ka ama maxaliyada aqalka sare ee maxaliyada baarlamaanka dowladda